kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey aad kala socoteen Dala TV. kayma toddoba dal oo ka tirsan qaaradda Latin America ayaa ku heshiiyey in la badbaadiyo kaymaha Amazon ee dhawaan dabka ka kacay. dadka markii kugu wareejay aad soo boqotay channelka Dala TV fadlan adigoo mahadsan subscribe like share notice si aad u heshid wararkii barnaamijyada cusub ee soo gelina channelka mahadsan. dal oo ku yaala Latin America ayaa wada saxiixday heshiiska wax laga qabanayo masiibooyinka dabiiciga ah ee ku habsada kaymaha Amazon ee dunida ugu balaaran. waxaanay dalalkaasi iska kaashan doonaan sida looga falcelin doono masiibooyinka halka ka dhaca mustaqbalka iyo isweydaarsiga sawirada dayax-gacmeedka lagu qaado. Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador iyo Guyana, Peru iyo Suriname ayaa heshiiskaasi wax ka qabashada masiibooyinka dabiiciga ee kaymaha Amazonia kala saxiixday. waxaana heshiisku dhigayaa in dhir lagu beero meelaha xalaftay ee kaymahaasi ka midka ah. gabagabadii shir madaxeedka kadib ayaa madaxweynaha Peru Martin Vizcarra uu malaha dareenka ay qabaan dadka u ololaya daryeelka deegaanka ee Latin America muujiyay markuu yiri niyad wanaag kali ah badbaado uma aha deegaanka. heshiiska ay gaareen dowladaha Latin America waxaa loola jeedaa in lagu muujiyo sida ay uga go'an tahay dalalkaasi wax ka qabashada dhibaatada ka dhacday kaymaha Amazon. waxay si gaar ah ugu heshiiyeen in la sameeyo shabakad ka hortagta masiibooyinka dabiiciga ah oo weliba isku dadaaladooda mustaqbalka ee lagaga falcelinayo haddii dab mar dambe ka kaco kaymahaasi oo haatan ka qayb balaaran oo ka mid ahay toddobadii dambeeyay dab ka socday. waxaa sidoo kale ku heshiiyeen inay isweydaarsan doonaan wararka gaar ahaan wixii la xiriira howlaha sharci darrada ah ee ka socda kaymaha ee ay ka midka yihiin macdan qodashada aan sharciyeysnayn. hase yeeshee dadka dhaliila madaxda dalalkaas weliba gaar ahaan madaxweynaha Brazil Jair Bolsonaro ayaa waxay leeyihiin heshiiska la gaaray wax ka weyni tari maaya haddii aan si buuxda loo dhaqangelin oo laga horeysiin siyaasadaha dalalka u gaarka ah oo had iyo goor lid ku ah nuxurka heshiiska.